wacan oo wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa ay meel kastood joogtaanba kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii falaqaynta siyaasadda caalamka. qodobadan kusoo qaadanayno waxaa ka mid a dagaalo xoogan ayaa la sheegayaa inay dhex marayaan ciidanka jabuuti iyo jabhadda canfarta ee fruud. dagaalada ayaa la sheegayaa inay ka socdaan xadka etoobiya iyo jabuuti iyo wadamo shisheeye oo iyagana la sheegay inay dagaalka kusoo biireen, iyo jabhadda canfarta oo ku eedeynaysa xukuumadda jabuuti inay ka qayb qaadanayso dagaalo xoogan oo ka socda deegaanada candhuufo iyo garbaciise, halkaasoo jabhadda cusub oo layidhahdo ciise liberation front ay subtida u haysaba layidhi ciidanka canfarta ee xooga ku qabsaday deegaanada soomaalida. qodobada iyo qodobo kale caalamiya ayaan ku falaqayn doonaa barnaamijkan. kusoo dhowaada. labada xukuumadood ee jabuuti iyo etoobiya ay ku heshiiyeen markaan iska kaashadaan weerarkaasi argagixiso kooxdii soo qaaday sidii loo ciribtiri lahaa. xukuumadda etoobiyana wasaaradda arrimaha dibadda waxay ku dhawaaqday markaa inay cambaaraynayso weerarka jabuuti lagu qaaday, halkaasi oo ay sheegeen markaa inay etoobiya diyaar u tahay in ay markaasi kala shaqeyso jabuuti sidii argagixisada loo ciribtiri lahaa. haddaba waxaa jira hadda warar badan oo warbaahinta dhinaca canfartu ay soo saarayaan, kaasi oo ay sheegayaan in ay ciidamada jabuuti markaasi howlgalla ka wadaan gudaha etoobiya, gaar ahaan markaasi deegaanada ay markaa canfartu ku badan tahay oo fadhiisinna ay ku leedahay jabhadani, kuwaasi oo ah deegaanadii ay soomaalida ka qaaday canfartu ee candhuufo iyo garbaciise. dhulkaasi ayuu markaa ay fadhiisino ku leedahay jabhaddan weerar ku qaaday xukuumadda jabuuti ayaa waxaa la sheegaya markaa maalmihii ugu dambeeyey o dhan halkaa in howlgallo xoogani ay ka socdeen. waxaana jirtay markaa in ay la sheegay in koox markaa lagu magacaabay ciise liberation front ay halkaasi weeraro xoogan ka geysteen, laakiin dhaqdhaqaaqaasi ayaa waxaa la sheegay inay yihiin dhalinyaro is abaabushay. laakiin dhinaca kale iyaga moogtahay jabhadda canfarta ayaa hadashay maanta, waxaana haddaba eedeymo kulul aan u jeediyeen dhinaca xukuumadda jabuuti oo ay ku eedeeyeen markaa in ay dagaalada hadda ka socda gudaha etoobiya ay koox soo abaabuleen oo ciidamadii jabuuti ku jiraan bay yidhaahdeen, kuwaasi oo canfarta lagu laynayo. haddaba jabhadda canfarta ee fruud oo maanta balyaan soo saartay ayaa waxa ay sheegtay in ay hadda moogtahay la shaqeynayso wadamo caalamiya, bay tiri wadamo moogtahay beesha caalam ka tirsan oo ah weliba wadamada saldhigyada military ku leh jabuuti. waxaanay sheegeen inay xidhiidh la sameeyeen kadibna ay ka wada hadleen sidii arinta loo qaboojin lahaa. waxaana hadda ay soo saareen markaasi jabhadaasi canfartu in ay kala hadleen wadamadaasi iyo weliba hay-adda ICRC sidii ilaa 7 askari oo ay qafaasheen jabhadaasi oo ciidamada jabuutiya ay u sii dayn lahaayeen. waxay yidhaahdeen askartaas sida sharciga caalamiga maxaabiista ayaan ula dhaqanay, waa sida hadalka u dhigeene. waxaanan doonaynaa sida sharciga caalamiga u dhigayo maxaabiista inaan ku bedelano maxaabiis kale oo markaasi ay ka hayso markaa xukuumadda jabuuti dhinaca jabhaddan fruud iyo taageerayaasheeda. waxay dalbanayaan markaa in xukuumadda jabuuti sii dayso maxaabiista u xidhan taageerayaasha fruud iyo kuwa siyaasadda u xidhan bay yidhaahdeen. magacyo dhowr ah ayay soo jeediyeen oo kamid yihiin barkhad cabdi wahaab iyo gaashaale fu'aad cali bay yidhaahdeen iyo homad gohaar iyo cabdikariin aadan shire. raggaasi ayay magac dhibeen oo markaasi ay yidhaahdeen waa inay soo daysaa xukuumadda jabuuti. markaa askartan ayaan ku bedelananaa bay leeyihiin oo markaa lasii deynayaa iyagana. waxaana ururka laanqeyrta cas ayaa arrinkaasi ka shaqayn doona bay yidhahdeen wadamada beesha caalamka oo hadda aan la xidhiidhna bay yidhaahdeen, inkastoonay magac dhabin wadamadaasi shisheeye ee markaasi la shaqaynaya may magac dhabin, laakiin waxay leeyihiin wadamadaasi shisheeye ayaa hadda arrinkaasi nagala shaqaynaya oo markaa xukuumadda jabuuti waxaan ka codsanayna bay yidhahdeen askarta inay noosoo mas-uuliyiinta waa inay noo soo daayaan, anuna askartananu sii daynayna. haddaba waxa ay markaasi hoosta ka xariiqeen oo eedeyn kulul ay u jeedinayaan dhinaca xukuumadda jabuuti oo ay sheegeen markaa in ay canfarta si u beegsanayaan hadallo noocaasa. laakiinse waxa hoosta ay ka xariiqeen in ay hadda xukuumadda jabuuti faragelin ku haysa bay yidhahdeen dagaalada ka socda dhinaca canfarta iyo soomaalida, halkaasi oo ay sheegeen markaa in ay ciidan badan geysay xukuumadda jabuuti oo dagaaladaasi ay qeyb weyn ka qaadanayaan. dhinaca xukuumadda jabuuti ilaa iyo hadda wax jawaabo kamay bixin arrimahan ay ku eedeynayso markaasi jabhaddu. waxaana hadda la sheegayaa sida wararka dhexdhexaadka jira ay sheegayaan
in nimankan ay sheegayaan in yihiin ciidankii Jabuuti oo ka dagaalamaya gudaha Itoobiya aanay ahayn ciidankii Jabuuti baa la leeyahay waa dhalinyaro moogtay Soomaaliyeed oo is abaabushay oo moogtay dadkii ciise deganaa deegaankaasi canfartu ay xooga ku qabsatay oo is abaabulay baa la yidhi kuwaasi oo la sheegay hadda inay subtida u hayaan nimankii canfarta ee markaa qabsaday Candhuufo iyo Garbaciise weeraro xoogan oo halkaasi ka dhacayna la sheegay in guulo badan ay ka gaadheen haddaba dagaalyahanada canfarta ayaa iyagu waxa ay horeba wacd ugu mareen bilihii aan soo dhaafnay oo ay sheegeen inay qabsan doonaan ilaa iyo erar ilaa iyo xadka Jabuuti oo markaasi aan istaagin weeraradooda saddexdii deegaan ay hore u qabsadeen ee Candhuufo Cadayti Garbaciise kuma koobnaana way yiraahdeen madana iyo markaasi dhow deegaano kale waa kuwii qabsaday ku darsaday waxaana ay sheegeen ilaa erar ilaa iyo mogtahay diridhaba ilaa xadka Jabuuti ayaanu leenahay bay leeyihiin marka canfarta ku doodayaan iyagoo haddaba weeraradaasi doonaya inay sii xoojiyaan abaabul xoogan oo ay galeen balay dhalinyarta ciise oo mogtahay bilihii ugu dambeeyay dhan socday waliba dhalinyaro kale Soomaaliyeedna ay ku beereen baa la yidhi ayaa jabhadan moogtahay maleeshiyaadkan isurursaday ee hadda moogtahay la sheegay in casharka u dhigayaan canfarta ayaa markaa waxa la sheegay in yihiin deegaan dhalinyaro deegaanka ah oo aanay ahayn ciidamo Jabuuti laakiin canfarta iyagu waxay aad dusha ka saarayaan leeyihiin waxa weeyaan ciidamadii Jabuuti oo halkan ka dagaalamayo dharka dhigtay bay yiraahdeen hadda moogtahay weerar nagu haya wali dhinaca deegaanka Soomaalida cid ka hadashay ma jirto eedeymahan ay canfarta u jeedinayso markaas dhinaca xukuumadda Jabuuti xukuumadda Itoobiya laftarkeeda cid ka hadashay ma jirto laakiin xukuumadda Itoobiya hore waa kuwii ugu heshiiyay markaas Jabuuti in wixii khatar amaan ah ee marka Jabuuti ay u aragtay in khatar ku tahay in sida ugu dhaqsaha badan leh marka ay tallaabo uga qaadi karto oo hawlgal ay ka fudin karaan markaas gudaha Itoobiya si aan u dhicin weerarada hadda dhacay bay yiraahdeen tobaneeyo askari meelahaasi lagaga dilay haddaba si kasta ha ahaatee waxaa la sheegayaa hadda in markaasi nimankii jabhadda canfartu ay markaa nafta u cabsanayaan waxaana hadda ay ku baaqayaan calanka cad bay taageereen dagaalka wal joojinayna bay leeyihiin wadahadallo nabadeed iyo maxaabiista in la iswadaarsado ayay ku baaqayaan dhinaca kale madaxda TPLF ee Getachew Reda iyo General Sadkan ayaa maanta shir jaraa'id qabtay waxaana ay ku faahfaahiyeen oo ay ka hadleen markaasi arrimo badan oo markaa hoosta ay ka xariiqeen iyo waliba codsi ay u gudbiyeen ra'iisul wasaare Abiy Ahmed haddii aynu ku horeyno qodobada ay ka hadleen waxay sheegeen in loo baahan yahay waqti dheeraad bay yiraahdeen oo hubka ay ku dhigaan 10 maalmood oo kaliya ayaa u harsan markaasi muddadii loo qabtay inay TPLF hubka ku soo dhigto taasoo markaa muddo 30 maalmood ahayd kana soo bilaabmaysay 2 bisha November dhamaanaysana 1 December markaa 10 maalmood in hadda u hareen haddaba madaxda TPLF waxay sheegeen inay isku xidhan yihiin ka bixitaanka ciidanka Eritrea iyo hubka dhigistooda wax ka yar 10 maalmood baa hore 10 maalmood waxay sheegeen markaasi hubka waanu soo xareynaa bay yiraahdeen laakiinse ciidamada Eritrea waa inay baxaan waxay carabka ku adkeeyeen ciidanka Eritrea yihiin kuwa qarribaya ee baabiinaya heshiiska nabadda ee TPLF iyo xukuumadda Itoobiya kala saxiixdeen waxaanay sheegeen inay ciidanka Eritrea bareed u weerarayaan dadka Tigrayga baaq iyo qayladaan ayay markaasi mas'uuliyadda TPLF u dirteen xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxaanay ugu baaqeen maadaama xukuumadda Abiy ka mas'uul tahay marka Itoobiya oo dhan ay mas'uul ka tahay inay sida ugu dhaqsaha badan bixiyaan tallaabo adag uga qaadaan ciidanka Eritrea haddaba muxuu daaran yahay codsiga iyo baaqa ay TPLF u soo dirtay Abiy xukuumadda Itoobiya laakiinse ciidanka iyo mas'uuliyiinta Itoobiya miyaan la joogin markaasi deegaanadan hadda ay joogan ciidamada Eritrea ee ay hawlgallada ka fulinayaan hawlgallada ay markaasi wadaan iyo markaa gaboofalyadan ay ku eedeynayso TPLF miyaanay arkaynin oo markaa aanay ka joojinayn maxay uga joojin waayeen mise eedeymaha TPLF baa beena